wuxuu ku bilaamayaa gabar lagu magacaabo Katie waxaa la socda kooxda dabagalka duufaanada oo ka caawinaya in ay gaarto himiladeeda ah deeq waxbarasho oo kulliyadda kiimikooyinka. Ujeedada kooxda Katie ayaa ah inay xakameeyaan duufaanada iyagoo kaashanaya qaar ka mid ah dareerayaasha lagu kaydiyo fuustooyinka. Wax yar kadib waxay aadeen dhanka ay ka muuqdaan duufaanada si ay u xakameeyaan iyagoo adeegsanaya kiimikooyinka. Markii ay bilowdeen roobabka duufaanta watay, waxa ay furka ka saareen dhammaan fuustooyinka si ay u raaciyaan duufaanada. Isla markii ay duufaantu qabsato dhammaan kiimikooyinka, waxay noqonaysaa mid aan la xakameyn karin. Jaffa oo looga tagay qaybta raadeerka wuxuu ogaanayaa duufaantu inay aad u kacsan tahay oo aan la xakameyn karin, wuxuuna ku amrayaa inay si degdeg ah u soo laabtaan. Isla markiiba duufaantii ayaa aad u xoogaysatay, waxayna qarisay baabuurka ay wateen, kadibna gaariga ayaa la gadoomay. Afartoodii oo argagaxsan ayaa ka degtay gaariga, waxayna bilaabeen inay la cararaan naftooda. Laba ka mid ah oo lagu magacaabo Adi iyo Baafan ayaa duufaantu qaaday, halka Jeeb uu badbaadinaya Katie, laakiin nasiib darro isla markiiba waxay qaaday asiga. Duufaantu way dhaaftay, qof walbana waa fiican yahay. Hadda dhacdadaas waxaa ka soo wareegtay 5 sano. Katie waxay joojisay riyadeedii hore, hadda waxay u nooshahay nolol caadi ah, waxayna ka shaqaysaa xafiiska xog ururinta ee New York. Si lama filaan ah, 5 sano kadib waxay la kulantay saaxiibkeedii Jaffa oo doonaya inay caawiso ayada. Jaffa oo hadda ka shaqeynaya militariga qaybta raadeerka. Jaffa wuxuu u sheegay inuu raadeerka uu hadda ka shaqeeyo awood u leeyahay inuu ogaado duufaanta si horumarsan. Wuxuuna u sheegay inay hadda wax kasta gacantooda ku hayaan, oo doonaya inay caawiso Katie. Wuxuu ku adkaysanayaa inay hadda wax kasta gacantooda ku hayaan, oo doonaya Katie inay caawiso si ay u badbaadiyaan nolosha dadka ku nool deegaanada. Katie way diiday, laakiin Jaffa wuxuu isku dayayaa inuu dib u soo nooleeyo xusuusiyadeedii hore ee duufaanta oo aadka u xanuunka badnaa, iyo inay caawiso dadka ku nool deegaanadaas. Waxa uu si faahfaahsan u sheegay Katie inay aad u taqaano qaabka loo qiyaaso jihada duufaanada ay ka imaanayso. Katie kuma qancin hadalkiisa, isla markiina way baxday. Jaffa ma quusan oo maalintii xigtay wuxuu soo diray warbixino ka hadlaya duufaan ku soo wajahan magaalada Oklahoma oo ay tahay magaaladii ay ku dhalatay. Ugu dambeyntii Katie way ogolaatay inay raacdo Jaffa si ay u badbaadiso magaaladii ay ku dhalatay. Jaffa Katie wuxuu keenay meel ay joogaan kooxo badan oo dabagalka duufaanada ah. Kadib wuxuu baray Katie xubno kale oo ka mid ah kooxaha uu hogaaminayo nin lagu magacaabo Scott iyo YouTuber lagu magacaabo Taylor. Jaffa ayaa weydiistay Katie inay saadaaliso jihada duufaanada. Katie waxay hubisaa daruuraha si ay u qiyaaso jihada duufaanada ay ka imaanayaan. Taylor wuxuu la yaabay kartida gabadhan lagu magacaabo Katie. Jaffa iyo kooxdiisii waxay u kala qaybsameen 3 jiho si ay mid ka mid ah sax u noqoto. Taylor wuxuu bilaabay inuu raaco Katie iyo Jaffa jihadooda, kadib markuu ogaaday inay haystaan qalab horumarsan oo raadeerka ah. Jaffa iyo kooxdiisii waxay bilaabeen inay rakibaan qalabka si ay u ogaadaan xawaaraha duufaanta iyo jihada duufaanta iyo cabirka saxda ah ay ku imaan karto. Kooxda Jaffa iyo kooxda Taylor ayaa u kala tartamaya inay mid kasta ka hormaraan tijaabada kiimikooyinka kuwaas oo lagu hakinayo duufaanada. Hadda labada koox waxaa ka dhaxeeya tartan aad u adag. Jaffa iyo Katie gaariga ayaa la gariyay kadib markay soo dhawaato duufaanta. Katie waxay ku qaylisay Jaffa si uu ugu dhaqsiyaha badan u joojiyo gaariga, halka Taylor iyo kooxdiisii ay qabsato duufaan aad u xoog badan, waxayna ku guuleysteen inay yareeyaan xoogga duufaanta. Kadibna waxay bilaabeen inay dabaaldegaan, wayna soo laabteen. Jaffa iyo Katie waxay bilaabeen inay dib u celiyaan xasuusiya xanuunka badnaa ee soo mara. Jaffa wuxuu doonayaa inuu waqti la qaato Katie waxay la kulantay maalintii xigtay Jaffa iyo kooxdiis, waxa ayna u sheegtay in duufaan aad u xoog badan ay ku soo wajahan tahay magaalada si degdeg ah ayna uga hortagaan. Dhanka kale, Taylor wuxuu ku boorinayaa kooxdiisa inay ka hortagaan duufaanta soo socoto. Waxa uuna hawada ku tuurayaa diyaarad nooca daroonta ah aan duuliyaha lahayn, iyadoo kooxdiisu ay diyaar garoobeen. Waxaa la arki karaa in laba duufaan oo aad u waaweyn ay ku soo socoto magaalada. Jaffa iyo Katie waxay ku sii jeedaan duufaanta ka soo socota qaybta bidix, halka Taylor uu ku sii jeedo duufaanta ka soo horjeeda. Taylor ayaa u soo dhawaaday duufaanta, wuxuu bilaabay inuu ku rakibo gaarigiisa dhulka si aysan duufaanta u qaadin. Xoogga duufaanta ayaa ka wareegtay isla markii ay u soo dhawaatay gaariga Taylor wuxuu wajahayaa niyad-jab aad u weyn sababtoo ah ma xakameyn duufaanta mana joojin. Jaffa iyo Katie waxaa xayirtay dabaysha, waxayna si dhib leh uga soo badbaadeen duufaanta, iyadoo duufaantu si xawli ah uga socota magaalada. Katie oo murugaysan waxay ogaanaysaa in duufaantu ay ku dhufatay magaaladii ay ka soo tageen. Magaaladii oo dhan waxaa ku habsaday musiibadaas, waxayna u soo jeediyeen Jaffa in ay tahay inay caawiyaan dadka ku waxyeeloobay magaaladaas. Jaffa markii hore wuu diiday, kadib laakiin gadaal ayuu ka aqbalay. Jaffa iyo Katie waxay heleen xogta Taylor iyo kooxdiisii inay mar hore ka geysteen gacan daadgoreynta dadka ku waxyeeloobay magaaladaas. Jaffa wuxuu ka tagay Katie in muddo ah. Katie waxay la kulantay Taylor si lama filaan ah. Taylor wuxuu u sheegay Katie in Jaffa uu doonayo inuu guryaha burburay qiimo jaban ku iibsado, kadibna uu sii iibiyo, sidaasna uu ganacsi uga sameeyo. Katie way diiday hadalkii Taylor, waxayna ku eedeysay inuu dadka dhibaataysan ka iibiyo cuntada. Isla markii uu tago Taylor, Katie waxay ogaanaysaa in Taylor iyo kooxdiisu ay si lacag la'aan ah badarka u qaybinayaan iyo biyaha dadka magaalada ku nool. Qarashka oo dhanna uu bixiyo Taylor. Katie iyadoo aad u naxsan waxay ogaanaysaa Jaffa iyo kooxdiisii inay iibsanayaan
guryaha burburay weliba qiimo jaban iyagoo doonaya inay ganacsi ka sameeyaan. Taylor ayaa u imaaday Katie si uu u raali geliyo, kadibna wuxuu u keenay pizzo asigoo ka codsaday inay soo daawadaan ciyaarta dibiga oo ka dhacaysa garoon u dhow xaafadooda si ay Katie murugadan isaga qaado ay u dareento farxad. Katie way aqbashay hadalka Taylor si lama filaan ah iyadoo bandhigu socdo waxaa la daarayaa digniinaha sheegaya in qatar soo socoto, laakiin dadku badanaa ma walwalin sababtoo ah waxay u qaateen digniino been ah maadaama maalintii dhowr jeer la daaro wax duufaanana aysan imaan. Laakiin wax yar kadib qof kasta wuu cararayaa si uu uga dhunto duufaanada isagoo doonaya in uu galo dhulka hoostiisa, laakiin nasiib darro duufaantu aad ayay u xoogganeed. Katie waxay ogaatay Taylor inuu si dhab ah u doonayo inuu u caawiyo dadka magaalada. Sidoo kale waxay la kulantay Jaffa iyadoo ku eedeysa dhammaan waxyaabihii uu sameeyay waxayna ugu yeertay Daneste. Katie oo aad u niyad jabsan ayaa ku soo laabatay guriga hooyadeed ayaa aad ugu faraxday inay muddo dheer kadib ay aragto Katie, laakiin markay aragtay qalbi jabka ka muuqda Katie hooyadeed waa u qalbi qaboojisay. Waxaana u yimid Taylor waxayna u sheegtay inay yaraanteedii danay jirtay inay wax ka ogaato duufaanada. Taylor wuu la yaabay waxayna tageen miiska qadada iyagoo cunteynaya. Katie hooyada Taylor waxay ka codsanaysaa inay caawa la joogo. Taylor iyo Katie waxay tagayaan qolka cilmi baarista ee Katie isagoo la yaabay qaabka ay u sharaxaysay adeegsiga bulumarka iyo inay mar hore ku guuldareysatay adeegsiga bulumarka. Waxayna u sheegtay ku guuldareysigaas inay musiibadaas ay sababtay saaxiibadeed inay ku geeriyoodaan. Maalintii xigta Taylor markuu baxay Katie waxay u sheegtay wax kasta oo u baahan yahay dhanka cilmi baarista inay ka caawin doonto ayna sii doonto xog kasta oo ay hayso. Waxayna wateen gaarigii ay saarneyd kiimikada. Jaffa ayaa Katie u soo laabtay isagoo ka cudur daaranaya waxyaabihii uu sameeyay. Sababta uu sameeyana wuxuu ugu sheegay inuusan haysan wax maalgelin oo ku saabsan cilmi baarista. Katie waxay ku wareejisay xog ku saabsan duufaanada iyadoo rajaynaysa inay ka caawin doonto inuu wax ka ogaado duufaanada. Taylor iyo kooxdiisa waxay aadeen duufaanada soo socdo ayagoo dhammaan kooxda Taylor ay isu diyaarinaysa kalkaan inay xakamayso duufaanada. Wax yar kadib waxaa bilowday duufaan aad u xooggan iyo roob isla socdo, waxaana bilowday dab ka kacay warshad u dhoweed meesha ay joogeen. Waxayna ku wargeliyeen dadka deegaanka inay si degdeg ah uga xaroodaan duufaanta. Taylor iyo Katie waxay dadka kala dhexeen dabaq weyn oo ku yaala goobta. Katie iyo Taylor iyo kooxdoodu waxay gaareen bartanka magaalada ayagoo bilaabay daadgureynta dadka. Katie waxay ogaatay duufaanta inay aad u sii xoogaysanayso. Go'aankama dambaysa ayay Katie qaadatay waxayna bilowday gaarigii kiimikada saarneed inay u wado dhanka duufaanta waxayna geysay bartamaha duufaanta. Gaariga ayaa la gadoomay kadibna kiimikadii ayaa dabaysha raacday. Waxay ku guuleysatay inay baabi'iso duufaanta oo dhan. Taylor iyo kooxdiisa waxay bilaabeen inay u cararaan dhanka Katie iyagoo doonaya inay soo arkaan inay nooshahay in kale, laakiin dhaawac yar ayaa soo gaaray oo xagtimo ah. Dhammaan dadkana waxay u mahad celiyeen Katie iyagoo u sheegay inay badbaadisay naftooda. Katie ugu dambeyntii waxay awoodday inay cilmi baaristeeda ka dhigto mid shaqaynaysa, waxayna heshay deeq waxbarasho oo waddanka dibaddiisa ah, waxayna macsalaamaysaa dhammaan qoysaskeeda iyo asxaabta. Filimku wuxuu ku dhammaanayaa Katie iyo Taylor oo jooga elaboorka. Waad ku mahadsantahay daawashadaada, fadlan subscribe dheh.